halkan aanu ku sugannahay waa xarunta komishanka doorashooyinka ee gobolka Maroodijeex oo loo ballansanaa caawa 12 inay soo baxdaan natiijada hordhaca ah ee doorashooyinka aqalka golaha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Maroodijeex. Qaar ka mid ah xisbiyada mucaaridka ah ee goobjooga ka ahaa tirinta codadka ee xaruntani gobolka ee komishanka doorashooyinka oo hadda ka soo baxay ayaa waxay saxaafadda u sheegeen inaan ilaa hadda la dhamaystirin arintii tirinta codadka doorashooyinka Soomaaliland ee isku sidkanaa golayaasha wakiilada iyo deegaanka waxaana sheegeen in ilaa habeen dambe laga yaabo inay qaadato tiga lagu soo saarayo natiijooyinka doorashooyinka golaha wakiilada ee gobolka Maroodijeex iyo golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa. Ismaaciil Aadan Cismaan oo kamid ah saraakiisha xisbiga mucaaridka ah ee wadani oo warfidiyeenka la hadlay ayaa sidan yiri: foomka la yiraahdo D1/1 oo golaha deegaanka ah iyo D1/2 oo golaha wakiilada ah oo ku jira sanduuqa oo ay ku qoran yihiin tiradii musharax waliba wixii uu helay iyo tirada wadarta guud ee xisbiga markaa helay ay ku jiraan. taasaa la soo saarayaa saddex xisbi qaran oo jooga markaasaa loo xaadirinayaa qof waliba wixii loo qoranayaan xisaabtu كمبيوتركنا ولا قلينايا دبتنا والله ضابعيا دبتنا سدح حسبي وانا شابضيننا ويسيحيان marka waxa weeyaan waad ogeydeen xalayba bilaabatay tijaabadii 7 saakay bilaabatay 12 koob iyo 10 iyo barkii baan joojinay imika laga soo baxay 12 iyo 13 daqiiqadood la waxa weeyaan waxa la dhameeyay sanaaduuqdaasi waa maalinta u horeysa had iyo jeer waa taqaana saxaafadda khibrad baad u leedahay shaqada la bilaaba maalinta u horeysa waa gacan culus tahay oo qofkiina uu ku cusub yahay shaqadii marka dhinacna training buu kaga jiraa oo wad garan karaysaa la hore muu soo qaban shaqadan qof soo qabto waa naadir qofku ku jira 30% sanaaduuqdii Hargeysa degmada Hargeysa iyo wakiiladoodii iyo deegaankoodii intaba wixii ku jiray oo aanay raacsanayn Gabile oo aanay raacsanayn Salaxle oo aanay raacsanayn Ballegubadle oo intaas oo qoro intii uu faraha badnayda ayaa lagu jiray marka 30% baa la tiriyay habeen dambe waxaan rajaynaynaa in la laab noqoto waqtigiisa ama waxaan noo haran wax yar noqdaan ama ay dhameystiranto marka waxaan u sheegayaa shacabweynaha reer Soomaaliland yaanay ka degdegin caasimada goobahoodu aad bay u fara badan yihiin gobolka Maroodijeex waa 699 goobood buu noqonayaa maaha wax ciyaara marka waa lagu jiraa shaqaduna si wanaagsan oo aan muran xisaabta dhexdooda lahayn oo komishanka wax muran la galay oo wax far smooth ah oo sanduuqii loo baahday in la isla eegay marka horeba uu kambaloni ka jiray ama aan wakiiladii komishanka doorashooyinka goobta joogay ayna foomamkan aanu sheegayna aanay soo saxiixin sida foomka D1/1 ama foomka D1/2 ayna saxiixin saxiixdu ka maqan yahay ayaa dib loogu furaya ilaa ma waxa la furay 6 sanduuq meelaha la furay mid qoro dhibaatay ma jiraan mid walba tiradii ay dusha kaga soo qorino saxa la tiriyay wax dhibana ma jiraan ilaa maanta waxa ma yaalaan si fiican ba hawsha loo wada degdeg baana u dhamaanay 9 degmo doorasho ay komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay soo saareen natiijadooda hordhaca ah taasi oo xisbiyadu ay u kala heleen in xisbiga talada dalka haya ee kulmiye uu helay 42 kursi oo kamid ah 9 degmo doorasho ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland ilaa hadda ay shaaciyeen natiijada hordhaca ah halka xisbiga mucaaridka ah ee wadani uu helay 29 kursi oo kamid ah codadka 9 degmo doorasho xisbiga mucaaridka ah ee u cudaya isaguna helay 18 kursi oo kamid ah codadka 9 degmo doorasho ee ilaa hadda komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay faahfaahiyeen amba ay shaaciyeen wixii warar ee ka soo kordha arrimaha natiijada doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka kala soco telefishinka RTN.